marka maanta waxay meelo badan ka xusayaan xuska 52 oo ciidanka asluubta waxay meelo badan ka xusayaan goobo badan oo ciidanka asluubta u degan ciidamada qarankan ka midna 4 ciidan baan ka midna wixii ciidan laga rabo oo dalku uu ka rabaan annagana yaa nagala rabaa hadday tahay difaaca ummadda iyo qaranka iyo dalka iyo hadday tahay ilaalinta dadka aan gacanta ku hayno iyo hadday tahay korinta dadka tabaalaysan oo ciyaalka yaryarka ah sida kuwaan hadda naga soo horjeedo oo kale intaba waa waxyaabaha nagala rabo annaga aan iska leenahay waay maadaama naliidi ciidanka asluubta innaga iskale ciidannima nagala rabaa dadaal ciidan baa nagala rabaa diyaar garow waa nagala rabaa cadowga waa adinka arkay xogaa waxaad moodaa siyaasadda xaggeeda iyo doorashada markii loo jeestay ayaguna waa naga soo daba jeesteen cadowga dalka waa naga soo daba jeesteenoo waxaad moodaa inay shaqadoodii kordhiyeen innagana waxaana looga baahan yahay inaan taanada kordhinno waxaan halkan hambaliyo ugu dirayaa dhammaan ciidamada asluubta Soomaaliyeed carruurtooda xaasaskooda dableyda sareeyaasha iyaalkan quruxda badan leh agoontii baan u malaynayaa intaasoo dhan baan salaan u dirayaa iyo gabadha wadata oo sharafta leh oo soo barbaarisay asluubtoo dhan baa barbaarina intaas kadib asluubta dad baa sheegtay inay lafdhabar yihiin markay hadlayaan laakiin anigu waxaan leeyahay asluubtaa lafdhabara sababtu waxa weeye waxay hayaan bil'aadmi oo adiga kula aqliya bay gacanta ku hayaan sanad guuradii 52 oo ciidamada asluubta markii la soo aasaasay oo maanta laga joogo dabaaldegaas waxaa idin leeyahay hambalyo marka ciidamada asluubta waa ciidamo hadda si fiican 5 sano la soo dhaafay dawladdan si fiican u dhismay haddana dhismahaayo waxayna ka mid yihiin 4 ciidan waa sida la sheegay waa lafdhabarka ciidamada qalabka sida maadaama waajibaadkooda uu yahay waajibaad qeexan inay ilaaliyaan maxaabiista inay daryeelaan carruurta inay dib u dhiska dalka ka qayb qaataan marka waa ciidamo oo la og yahay shaqada ay qabteen haddana qabanayaan ayadoo taasna la jirto in ammaanka dalka qayb weyn ay ka qaataan difaaca qaranka marka waxaan leeyahay ciidamada asluubta iyo taliyaashoodaba